waxaan hortaaganahay howlkii weynaa ee maanta ay ku shireen xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya xildhibaanadii oo gabdho iyo wiilal baan la jooga walaal magacaaga xildhibaan hadaad igu bilowdo aniga magacayga waxa la dhahaa Maxamed Maxamed Yare ka waran maanta saad u arkaysay arrimahan cusub ee la ansixiyay arrimaha cusub runtii aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa isbedel bay ahayd lagu sameeyay afhayeenka baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa gudoomiyaha maxkamadda iyo ku-xigeenkiisa calanka oo aan soo qaadanay astaantii hore ee deegaanka Soomaalida uu ku galay heshiiskii dastuurka Itoobiya ee qowmiyadaha ay ku heshiinayeen marka runtii saddex qodob maanta la soo dhigay aad iyo aad ay u fiicnaayeen waana soo dhaweynaynaa ka xildhibaan ahaan waxaan ognahay calankii iyo astaantii inaad idinku laasheen ka xildhibaan ahaan haddana waa soo dhaweynaysaan waad naasixiseen maxay ku kala duwan yihiin laakiin annaga ka xildhibaan ahaan waxaan taabacsanay soo dhaweynaynaa astaantan oo ahayd calankii aanu heshiiska kula galay ee calaamada Soomaalidu ka muuqatay xidigta ay ka muuqataa waxaanu kula heshiinay waxay ahayd astaantii hore ee aanu ku galay heshiiskii hore dastuurka qowmiyadaha Itoobiya ay ku heshiinayeen ay ahayd marka in la soo celiyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa haddana xildhibaan kale ayaa ila jooga xildhibaan sidaad u aragtay kala fadhigii maanta Dr. Bashiir Macallin Xasan kala fadhigii maanta waxaan u arkaa inuu ahaa kala fadhi runtii taariikhi ah oo ka jawaabay sidee taariikh u yahay muxuu ka jawaabayay taariikh u yahay dawladdan hawiyadeedii iyo maaragtay dhalashadeedii ayuu tarjumayay sharcigeedii iyo asalkeedii meeshaas uu tarjumayay tilmaam badanna ka bixinayay runtii sidaa daraaddeed waxaan u arkaa inuu taariikh ahaa dhinaca kale isbeddelka Itoobiya si guud uga socdo la jaanqaadaya magaca la dhaho reformka ama isbeddelka dawladda ayuu asna tilmaamayay marka waxaan u arkaa inuu asna muhiim ahaa ayuu ku waxay ugu muuqaal dheeraa wuxuu ahaa calanka waxa ugu dood badnaydna waxay ahayd heesta calanka sidoo aragtaa aad soo koobaya heesta calanka waxaan u arkaa bulsho kastaba tilmaam bay leedahay tilmaanteeda marka ayay tarjumaysaa marka sidaa daraaddeed dadku sidaas ay ahmiyad weyn u siiyeen ahmiyadaasna waxay ku salaysan tahay ayaga jiritaankoodii iyo ka duwanaanshada bulshooyinka kale ay ka duwan yihiin haddana xildhibaan kale ay la jooga xildhibaan haddaad magacaaga igu bilowdo bismillaahi raxmaani raxiim xaliime ibraahim xirsi baa la yidhaahdaa xildhibaan sidaad u arkaysay ajandayaashii maanta laga dooday ay ka mid ahaayeen astaanta calanka iyo weliba dowladda magaceeda oo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya maanta kadib aan la oran karin dowlad deegaanka Soomaalida kaliya lagu soo koobay iyo weliba heesta calanka oo muran badan dhalisay aad ayaan u soo dhaweynayaa fikirkaas aad ayaan u faraxsanahay sababtoo ah heesta calanka waan soo dhaweynayaa astaanta calankana waan soo dhaweynayaa aydan laga reebayna maadaama qowmiyadaha Itoobiya oo dhan ayna lahayn Itoobiya ayna dabada ka raacsanayn aad ayaan fikirka u soo dhaweynayaa